marka su'aalahaas ma ku weydiin karnaa feel free way weydiin kartaa waxaad weydiin karin ma jirto ka waran soo dhaweynta wasiiladii waxa caqabada ama kala kulantay maya haye waxa la sheegayaa hanay qaruur la sheegayo oo gacantaada ku jira oo waliba dad dhalayaan oo gacantaada ku jira horta maxaa ka jira samareen markay ku soo degtay oo laga soo raacday ka waran waxa la yiri ilmaha hadda waliba waa iibsataa haddana kaliyaha kala sii baxda marka su'aashaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabad daawadayaal meel walba adduunyada dacwada ka joogtiin waa anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Axmed channelka naga daawanaysana waa Cabdulqaadir Wasil official iyo Hana Abukar fadlan hadaan ugu cusubtiin subscribe like share comment maanta Hana ayaa noogu martay ah channelka Wasilkeeda martay kuma ahee marka Wasilna martay bay noogu tahay qof magac nagu leh Hana ku soo dhaw channelka Cabdulqaadir Wasil iyo degmada Wasil بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أمد الصومالي ميل بقى داونيسة وحا محل مركه هراء إلهي سبحانه قادر كأها عافمات كنسيي مسكح ذا عافمات كوشرت النسيي عمري قدير نسيي والسند والباء نقو عافمات قمنا مالين والباء نقو عافمات قمنا نوضا كولنسية ميل بقى عافمات كمرنا مهدا وحا إسكالي إلهي سبحانه قادر أها محل بعض وحا إسكالي أمد الصوماليات ميل بقى وذا شوكتان دعاء ذينا والد كيغا hooyadii waan adduunka ugu jeclahay daahir cabdi cali sow thank you aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa safarkayga wuxuu ahaa qofkii ka dambeeyay inaan inta imaado inaan maxaa deegaanka inaan maxaa lagu dhahaa ka soo wardoona aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waa idin salaamayaa waxaan ku leeyahay horta adiguna Cabdiqaadir aad u mahadsan tahay because waxaa tahay annagu wadankii waan ka maqanahay ma joogno Soomaaliya qurbaan iska joognaa waan iska soo kacnaa shaqaan iska aadnaa caruur baan bursanaa wadankii horumarkiisa aad noo soo bandhigtid waan kaaga mahadcelinayaa aniga shakhsiyan anoo magaca Soomaaliyeed ku hadlay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa because waxaa tahay dadka service-ka noo sameeya adiga iyo dadka ganacsadaha hoteelada iskale umada Soomaaliyeed meel baa wada joogtiin aad baan inkaga mahadcelinayaa service-ka aad noo sameeysan Soomaaliya meel baa ka joogtaan because dadkeena qurbaha markaan ka imaadno waxaan sugaynaa meel qurux badan meel wanaagsan meel oo fiican waxaan noo sameeya meelaha fiican oo meelaha wanaagsan oo dadka nagu soo celina waa dadka adiga camal ah waa ganacsadaha Soomaaliyeed meel ay wada joogan waa culimaa diinta Soomaaliyeed waa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ka shaqeeya nabadda iyo horumarka waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dadkii ka shaqeeyay nabadda galmudug taala aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hana aad ayaa maasan tahay sida qodobo badan aan noola soo fadhiisatay naguna sharaftay inaan hor fadhiisatid waan kaaga mahadcelinaynaa sharaf iyo karaama ku haynaa ka waran soo dhaweynta wasiiladii waxa caqabada ama kala kulantay maya meesha aan inta aan meel soo maray meesha ugu wanaagsan bay ahayd been ma ku sheegay nabadda ka jirta taada kala walaalayaalow meeshan waxaan ku arkaa idin sheegayaa harku hawa macaan jawi degan kuleel ma aha waa qabow مقدشة عمل ولكن مقدشة وحي كل شيء ماشي أبريل يا ماي مقدشة هذا وكل شيء ماشي على قبل هذا كل الكون هو 15 دقيقة بالله يقول ما 30 دقيقة وايو هو مع بلادهين وحال كان أقوم هذا على فاميلي جايجا أودن رويسر شوقة مقعد مش مسكوا بكر دمان تي وحال ياهي واد مهسنتيهين مركا هنا وما سنتهاي مرة بعد مرة صدقت كوسة دو دقمة وسيل هنا su'aalo badan aan rabnay inaan ku weydiino hadaan nahay dadka ku nool gobolka Mudug gaar ahaan degmada Wasil marka su'aalaas waa noo qorayeen bal waxa nooga warbixisaa ka waran safarkaaga Soomaaliya muxuu ku saabsanaay waxa tagtay Muqdisho waad ka soo gudubtay dhul Soomaaliya baa timid waa ka soo gudubtay tuulooyin badan meel badan soo martay aakhirkii waxa timid Wasil marka safarkaaga muxuu ku saabsan yahay hana waad mahadsantahay dalkayga markii ugu horeysay aan imaado ma aha waqooyiga Soomaaliya waan tagay garowe dhankaasaan tagay haddana maanta waxaan ku suganahay galmudug maxaa lagu dhahaa ii sheeg waxaana ka dambeysay hore in kugu sheegay walaalkayga aniga la dhashtay qofka yaqaan daahir cabdi cali sow aad iyo aad u mahadsan tahay waxaa qofka igu dheerigeliyay bax igu dhahay galmudug tag igu dhahay soo arag igu dhahay ku soo raaxaysay igu dhahay dalkaaga waaye aad baan kaaga mahadcelinayaa waxaa halkaan ugu mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogta maxaa lagu dhahaa ducadiina ku socda hooyaday dadka Soomaaliyeed baan salkan ka salaamayaa waxaan si gooni ah u salaamayaa laba qof oo igu qaali ah
marra magacadooda inaan halkan ka sheego waa 3 qof raali noqo 3 qof weeyaan aad igu qaali ah oo aad iyo aad iyo aad iyo aad igu qaali ah aan rabo 3 qof way is yaqaanaan dadku iska yaqaanaa waa dad oo aan walaalanahay oo gaar iyo ah aad baan ugu mahad celinayaa iyagana ayaga aad u maasihiin horta hore soo dhawow hana waxaan rabnaa marka inaan su'aalihii u guda galno waxaana jira su'aalo badan oo dadku isweydiinayaan haddana qaas ahaan dadka isticmaala baraha bulshada waxyaalo badan baa la soo gudbinaya oo weliba kugu saabsan adiga marka su'aalahaas ma ku weydiin karnaa feel free way weydiin kartaa waxaad weydiin kari ma jirto haddaan wax la su'aalin oo aan la wada hadlin xal lama keeniyo ma sha Allah aad ma santaa haddaan su'aal u sii guda galno waxa ka mid ah hore ayaamahan waxa la yidhi samareeb markay kusoo degtay oo laga soo raacday nooga soo hadalkaas bulshada ku xiran channelada iyo dadkana daawad doona ugu baahay bixisid horta waxa ayaan dara ah meel Samareeb waa meel Soomaali weyn dhan gogasheeda Samareebna loo bixiyay Samareeb meel Soomaali gogasheeda dhan lagu googlay oo lagu heshiisiyay wax maskaxda gala in la isku sheegaa fiican moqtaa meel Soomaali lagu heshiisiyay oo gogasha Soomaaliyeed lagu fidiyay ee umada Soomaaliyeed lagu heshiisiyay ee maanta karaamo gooni umada Soomaaliyeed u leedahay ciise gooni umada Soomaaliyeed u leedahay do you think ma u malaysaa qof Soomaali oo muwaadin ah ani waa qof bara bulshada laga yaqaan caan ah qof Soomaali ah oo muwaadin ah Soomaaliyeed in lagu xumeynaya ama laga soo raacdaynaya I don't know meesha ka keensatay anu garan maayo Soomaaliyeed warkaas waa war beena wax laga soo raacday malaha ana dalxiiskayga ku jira baashaalkayga ku jira maalin buu magaalaha rabaa inaan tago insha Allah biidin Ilaahi kariim dalkaygan jooga balaayo ma qabo waa caafimaad qaba waa kasta su'aal labaad marka hata ramaasan tahay su'aaluhuna waa waxaan rabaa inaan ku feel free marka ina xawaa noo dulqaatin oo baahan in ka saarno su'aalaha kula socodsiin hata baraha bulshada waxyaalo badan baa laga falanqeynaya qaasan dad macnaha baraha bulshada isticmaala si fiican u isticmaala meeshaan ma rabnayna magacooda ka sheegnaa ninku wax maareemayno laakiin waxa qasaba in su'aalahaas ay dadku isla wareegayaan maadaama aad ka soo hadlin ilaa waqtigu bilowda hadalkaas in adiga naga jaahil bixisid macnaha dadkaagi oo meesha fadhiya ku daawanaya birisidii ugu dhaadhacsan hadda waqti baa ka lumaya waqti badan baa rabtaa inaad galmudug ku socotay sida noo sheegtay marka waxaan jeclahay inaan gaarsiino dadka marka su'aalahaas waxaan ka mid ah ka waran waxa la yiri ilmaha hadda wali waa iibsataa hadana kaliyaha kala soo baxda marka su'aashaas ay baraha bulshada wareegayso maxaa ka jira hadalaas horta umada Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantihiin su'aalada isla wareejinaysiin qof walba maskaxdiisa aqligiisa iyo garaadkiisa ayuu ku shaqeeyaa horta Soomaalina waa la dhihi jiray waa la yiri waa la dhahay waa dhamaatay qofka Soomaali hadda waxa la marayo Cabdiqaadir walaalkay indhihiiba u furmay 2020 ga la maraya maanta waxaan joogaa wasiil baan ku suganahay magaalo yar oo qurux badan weeyaan muuqaal baan duubaynaa waan baashaalaynaa alxamdulillah ala shukrillah uma malaynaya waxa baraha bulshada la iska dhaxyaacay oo la leeyahay ilma haday oo kala baxday haddana waxaasna wax u dhawaligay maana sameeynin ilaahayna wixii waxa sameeynaa ka soo hadeeyo umada Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa wax baan ka codsanayaa qof waxa sameeya anigu ma ihi runta idin sheegaya waana ku mahadsantahay su'aaladaad inay su'aashid dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa وقف والبخارين وسؤال شو وانا كسر باهي سؤال قبطه ما يسوق عن كده ما حد كهرنا كرتونا كشيء ومدة الصومالي وحن كعد سنة قفل بالصومالي وحن كسر الدعاء الصومالية قفل بالصومالي أو وحن كعد سنة حل وحن كعد سنة حدا وحل يجشي عبد القادر إيشران إلهي وسبحانه قادر الله إيجا صار ومصيبة أن لجرنين عرك الله إيجا كينو آمين تيده كي وحشيجنا أو وحشيج ودك بنشيجنا إلهي أصلا هرتي ساكا صار أنا قلت إلهي بنكون عسنا هاي دعاء الصومال بنكون عسنا هاي الماء قط الماء كليه كلا بحنا والي جاي ما سمين ما نسميه ومد الصومال أنت عقلك السليم كوهنا ويتقانا تذكر الصومال ومد وجرجارة والي ما كل حشرت 94 إلا هذا كسر حشرت صومالي وحنا
la sheegin ma jirto aniguna intaa waxaa la rabaa inaan u jawaabi maayo waxaa iga tala badan howlahayga shaqadayda dalxiiskayga baashaalkayga waxaa iga tala badan in maxaa lagu dhahaa isha familygaygaan la joogaa reerkayga wasiila maalo meel baa layga casuumaa maanta neef baa lay soo qalay shalay waxaa lay kariyey maxaa lahaa filfiliir baa meeshaan ku cunaya waa iska dhuuqitaan baa ku jira abo macaano ma fahantay marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa lala wareegaya ee beenta ah qofkii rumaysanaya say u taala laakiin anigu hana leedahay waxaas igama suurta gasho waligan igama suurta gal alxamdulillah alshukrillah waana itaqaaniin waxaan ahay umana baahina halkaas ka sheego ma sha Allah aad ma santahay su'aalu waa iska sii farbadan yihiin ma ogtahay marka noo dul qaado ma laha feel free ilmaha wili xaqooda ku sii jirnaa waxa la sheegayaa hanay qaruur la sheegayo oo gacantaada ku jira oo waliba dad dhalayaan adigu gacantaada ku jira horta maxaa ka jira waa maxasan tahay aad baan kaaga mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed waxba kama qarsano qof walba Soomaali oo dhiban waan wareystaa waana ka soo saaraa qof Soomaali muwaadin Soomaaliyeed oo la dhibay oo inta laga kaxeeyay Yurub laga soo kaxeeyay qurba la keenay halkan oo lagu hagaajinayo oo la xanaanaysanayo waa gooni laakiin macnaha waalidka qof haysto xanaanaysanaysa waa gooni anigu waxaan dulmigaan diidanahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku sheegay wuxuu dhahaa isdulminina anigana naxariista idin akeenay naxariista marka qofka akeensatid adigana Ilaahay naxariis buu ku siinayaa alxamdulillah Ilaahay uu jecel uu ii hiiliyay alxamdulillah alshukr Ilaahay 10 jeer maal buu ii hiilay Ilaahay because Ilaahay wuxuu isii raxmad gooni ummadda Soomaaliyeed aan haysanin waxa Ilaahay isii naxariis gooni ah wuxuu Ilaahay isii karaamo gooni ah ummadda Soomaaliyeed waxa ku socod waa ducadooda marka waxaan rabaa inaan ku sheega ilmaha la sheegayo la leeyahay gacanta haanay ku jiraan ilmaha dadkii ka dhacday ilmaha waa meeqa marka ilmaha waa meeqa anuu baarshaan waqti ima tirsana been maaha laakiinse ilmuhu waa badan yihiin ilmahan gacantaada ku jiro la sheegayo la raadinayo maal raba meesha ku haysidina u soo bandhig okay waa soo bandhigaya ummadda Soomaaliyeed gabar baa waxa jirta aan ka soo saaray in Muqdisho hadda ka hor gabadhaas Ethiopia baan geeyay marka hore gabadha waa gabadh dhiban ahayd wareysi baan ka qaaday baraha bulshada ka sheegay sadaqaa Soomaali lacag soo aruurisay waa soo bixinay alxamdulillah alshukr maanta meel ay joogtana muhiim ah inaan sheego wayna caafimaad qaban taasaan idin sheegayaa ilmahaas iyo gabadhaas Muqdisho joogto mid waa midaas ma sha Allah midda kale gabadh waxa jirta Burca ah waxaan wareysay 2019kii December ma ahayd November ba ahayd aan wareystay ummadda Soomaaliyeed marqaati bay ka ahayd dad badan oo Soomaaliyeed sadaqa way soo dirsadeen gabadhii waana ka soo saaray gabadhii dhibkii maanta waxay joogtaa Burca baadiyeeda ka soo saaray xitaa maanta waxay joogtaa wadan sharci leh nidaam leh safaarad bay gacanta ugu jirtaa oo Danish ah safaaradda Danishka gacanta ay ugu jirtaa orda weydiya maxaa laga soo weydiinaysiin dawladda ilmaha baasboor ilmaha Danish wataan maamadii baasboor Danish maysan wadanin baasboor kiriiskay wadatay wadanka Danishka ahna aad iyo aad u xun ummadda Soomaaliyeed way ogtahay loo yara u qabtay صح waan la dagaaltamay sharcigu ka dhacay waxay sharci uma soo celinayna adigu juhdi badan waqti badan aan geliyay alxamdulillah waxaan ku socdana waa ducada Soomaaliyeed intaasna ima suurta galeen one dayna insha Allah biidnillaahi kariim haduu ilaahay yiraahdo reerkaas iyo aniga baraha bulshada oo isdhax fadhino oo aan wareysanaya haduu ilaahay nafta ii daay waan soo dhigayaa insha Allah biidnillaahi kariim haana Abu Kara la soo dhigayaa reerkaas uu tagi doonta insha Allah haana wali hadalaas la sheegay wali qof hadii ku hortimid oo ama familkaas la leeyahay dad ay ka dhacdo ilmi ka dhacdo wali dad ku hor yimid oo ku qabsada ma jirta inta Muqdisho ilaa dhul Samareeb ilaa wasil soo gaarisay wax ku qabsada ma jira waa mahadsantahay Cabdiqaadir horta dalkan meeshan aan jooga Galmudug Soomaalidu waxay aaminsan yihiin hal jufa iyo hal cid inay degan tahay صح meeshan hal cid ma degno runta marka idin sheego waxaan ku soo arkay xamar alcad ah waxaan ku soo arkay dad Pakistaaniyaan ah waxaan ku soo arkay Siiriyaan waxaan ku soo arkay qabiil walba oo Soomaali ba meeshan deg magaalada Wisil hadda degan 12 qabiil oo kala duwan baa degan hal cid ma degno okay reeraha ilmaha anigu aan ka xaday oo la sheegayo oo la dhahay hala ilma kaliya kala baxday ilma ka xaday meeshan Wisil way ila degan yihiin oo gaalkacay degan yihiin oo Dhusmarebe degan yihiin oo Muqdisho degan yihiin inta ii imaadaan ma ii qabsan waayeen aaw ilmaheena naga xaday wili aaw naga xaday ma idahan
marka waxa waaye umada Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa qof walba intuu fikiro aqligiisa email inta fariisataan aqligiina marka meel fariisan waxa sameeyay idin sheegayaa soo weysa qaada laba rakacdood tuka waxa tiraahdaa ilaahayo ii tukada waa idin baryaa qof walba Soomaaliya ilaahayo hana hadee ilmo gadato oo kaliya ay kala baxdo horteeda Allah oo dhibaataysan horteeda Allah ka siiyo kan waxa sheegay ama tan waxa sheegaysan horteeda Allah ka siiyo number 1 teeda kale waxa sameynaysiin inta fikirtaan wixii inkiga soo baxa haddii aad tiraahdo waa tuugo ilmahay dhacdaa ilmahay wax ku samaysaa ilaa waxa la iska rabaa cadaynti ma ogtahay adi wixii inkiga soo baxo anigu ha ii sheegina idinka inta ku qus qaadataan idinka la isku sheega ما شاء الله صحوه هنا أنا هذا الكلام فهمي إنه تهاي قفكي يعني المداحضي صومالي ما ذنب نعم سوي معنا صومالي ما حس رجل أي شيء المكحضي صومالي كوسا لابتي قاصة هذانا رجل مدير أكتوغا أو هذانا صومالي كنا ما يصيرن تهاي معناها أنا واحد فهم هذا الكأسداس يسها وعلى قبص الله هاي ما أنت ماشان قفك دعوة قبتها أيضا أردي سالة فاملي كان كل حشرة ولا عليه كل حشرة هذا الرذي ما تشوق مشان إيدياش قبتات شوق ما صدق قبتات شوق غير كيجا مشان كبوح لا هرت ما قدك الصوماليين قف أو مال علك نشتمش الصومال ويوضع لا ترنت اللي سكوشة مقطع رد سكوشة وين سودي قارنا الصومالي قابلين لو إحنا تانا الناس صومالي هذا هاي قلمودك كسر كذا waxa ka soo jeeda in shaqlanka iyo garowa waqooyiga ka soo jeeda Djibouti ka soo jeeda jigjiga u taga Mustafa Agjar u taga waxa tiraahdaa hana kula artay naga farmaajo u taga Xasan Cali Khayr u taga Xasan Sheekh Soomaalida ku qabataadii Sheekh Shariif u taga war Soomaalida dhan baa ay qabata anigu hadii dambi gabadhan leedahay Soomaaliyeed hatta waxa ay taagan tahay wasiila lagu xukumi karaa oo leedahay kana iga garbaha qofkii haysata iska badaa inta la gaarinba gabadha hadii sirbi joogtaa ma sha Allah caafimaad bay ku joogtaa alxamdulillah waa ku jirtaa dadkayga ku dhex jira inay ku noolaato deegaanka reerkayga ku dhex jira alxamdulillah maxaa cuni maxaa cabbi saakin neef baa la qalay xalay waxa la isii filfil soo duubayay maxaa cuni maxaa cabbi jiifka cuntada laygu keena kaala arag war nimcada aan ku jiro waliga intaan wareegayay galmudug nimcada aan ku arkay meel kuma arkin runta in laga hadlaa fiican ma ogtahay meeshaan waxaan arkay dad ma sha Allah tabarakallah maxaa cuni maxaa cabbi subaxdii qurac marta waa diyaar muskaba halkaas la dhigaya cadigay halkaas uu saaran yahay wax walba wala isku dul saaraya aada ma santaana qofkii intii joogta degmada wasiil ay ku noosho qabti su'aal rabta ama aqal qabta inay wax weydiiso hanoo soo gudbiso anaka weydiinayna magaalada cod laga maxego magaalada dad badan baa degan oo kala duwan badan baa ku nool markaas sida sheegtay way ahaana wasiil bi noo joogta way noo dalxiis doontaa gobollo badan degmooyin badan way mari doontaa insha Allah nala socda muuqaalkan labaad aad ayaan mahadsantihiin muuqaalkeena labaad la socda aad iyo aad u mahadsantihiin umada Soomaaliyeed waxaan ka daawan doontaa muuqaalkan Hana Abuukar iyo Abdulqaadir Wasiil subscribe saara wiilkan wiil dhalinyaro ah waaye subscribe ina u saartaan waa waajib ku saaran qof walba Soomaali ah because horumarka dalka noo soo bandhigtaa waa kaaga mahadcelinaya anoo ku hadlaya Soomaali weyn magaceeda halkan waxaan ugu mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed ee isoo waco telefoonkayga waan xiray Facebook ku jiro waxaan u xiray waxa waaye waqtigii baa igu yar baashaara ku jira ma fahanteen hawo macaan ku jirta hawo macaan ku jira magaalo raaxa imaaday magaalo hawada halka alayha imaaday telefoonka Facebook oo baraha bulshada dhan waxaan ku dhaftay istilaab aan ku dhaftay kaliis waan furayaa mar dhow insha Allah biidin Ilaahi karim waana soo fariisan doonaa waad arki doontiin aad baan ikiga mahadcelinayaa inboxka ay soo gasheen Facebook fariimadiina waqtigiina qaaliga ah ducadiina dhiirigelintiina kalsoonidiina ayna waxa in ku sheego aad baan idin jeclahay Ilaahay idin sharfo Ilaahay idin cizeeya ilmaha Allah noo xifdiya sharta Allah naga qabto shaydaanka Allah naga xijaabo Soomaaliya guul iyo gobonimo u rajaynaya Soomaaliya meel iska xiga ma laha wada meel waxaan anigu aan safarada u tagaya waxa jira dad aaminsan meel hebel ma tagi karo jufo hebel baa tagan sawirka khaldan baa raa umada in anigu ka saaro meel walba waan tagay waqooyiga Soomaaliya tagay dhanka ay waxaan tagay Garowe hadda galmudugan jooga Kismaayana waan tagay insha Allah biidin Ilaahi karim ahey ما سنوكا إسكال أحمد مدوان هلا يقول سلام نكس آدم وصفات قرية آدم وشعله هاي يقول سلام وأنا وصل سعداء إن شاء الله بإذن الله كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته